السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كارستين جراف waa nin u dhashay wadanka Denmark waa qoraa sidoo kale bartay xirfadaha kombiyuutarka iyo ganacsiga wuxuuna ahaa shaqaalaha dhowr hay'adood oo caalami ah ee dhanka isgaarsiinta kombiyuutarada iyo warbaahinta. ninkan wuxuu wadamo badan u maray si uu ugu dhaco caabuqa coronavirus kaasoo xanuunkan baadi goobayay muddo 11 bilood ah. sida uu sheegay waxaa dhagihiisa ku batay sheegidda xanuunkan iyo ka hortagidiisa sidoo kale wuxuu dhibaato u arkay fayadhowrka iyo ka taxadarka xanuunkan. wuxuu go'aansaday inuu xanuunkan cadeyntiisa raadiyo oo naftiisa u bandhigo isagoo markiiba isweydiiyay halkee ayaan ka qaadi karaa cudurkan. wuxuuna safarro xanuun raadin ah u goostay oo ugu ambabaxay wadamada Sweden, England, Spain iyo Brazil. raadinta caabuqan waxa uu ka bilaabay joojinta nadaafadda gacmihiisa xilliyada uu wax cunayo balse waqti badan markii uu waday uu ka waayay natiijo aad u weyn wuxuuna bilaabay inuu gacmihiisa ku xoqo indhihiisa afkiisa iyo waliba sankiisa ama guud ahaan wajigiisa. wuxuuna intaa raaciyay inuu isku xoqo dadka cudurkan ama caabuqan COVID-19 la saaxiibka ah xilliyada ay si salaamayaan. hal bil kadib wax natiijo ah meelin maadaama Denmark aanu xanuunkan caabuqa aad ugu badnayn xilliga. wuxuuna bilaabay safaradiisii caabuq raadinta inuu ugu jeesto oo uu tigidhka u goosto dhanka wadanka Sweden oo xilliga caabuqu aad ugu jiray isagoo tagay magaalada ugu mashquulka badan wadankan ee Malmo. nasiib darrose 2 bilood oo ku sugnaa wadankan waxa ugu dhammaaday natiijo la'aan ah inaanu xanuunkii weli asiibin naftiisa. haddana wuxuu safar kale ugu baxay England magaalada London oo joogay saaxiibkii oo caabuqani haleelay. wuxuu ahaa mid aad iyo aad ugu dhawaada xilli kasta saaxiibkii si uu uga qaado xanuunkan. sidoo kale wuxuu ahaa mid taga London Underground oo caabuqu faraba'an ku hayay xilliga laakiin muddo bil ah iyo xanuunkii oo aanu weli iska helin ayaa isugu dhammaaday. wuxuu TV-ga ka arkay xabaalo wadareedyo iyo gumaadkii caabuqu ka geystay Spain. wuxuuna u soo duulay si degdeg ah iyo dhanka Spain. wuxuu bilaabay dhexgelidda bulshada sareysan ee xanuunkani asiibay tigidda baararka iyo goobaha buuqa badan. markii uu joogay waxay dawladda Spain soo rogtay lockdown ama bandow si loo badbaadiyo waayeelka iyo bukaanada. wuxuuna gartay in haddii bandow jiro xanuunkan aanu qaadaynin. baadidoonkii caabuqa dartii wuxuu mar kale tigidh u goostay dhanka wadanka Brazil oo xilligan la ildarnayd caabuqan. wuxuu bilaabay lacaweynta kuwa saboolka ah oo caabuqan faraba'an ku hayay. waqti ku qaadashada baararka iyo tumasho xad dhaaf ah oo uu sameynayay wuxuu cid kasta la wadaagay isdhaafsiga dheecaanada si toos ah iyo si aan toos ahaynba. Karsten Graf wuxuu hore uga soo waayay wax natiijo ah 3 wadan oo hore wuxuuna wadankan Brazil ka waayay natiijadii uu ku haaminayay ugu dambeynta inuu gaari doono. wuxuuna damcay inuu dib ugu laabto wadankiisii laakiin Denmark waxay joojiyeen soo galidii iyo ka bixidii wadanka. wuxuu u guuray magaalo kale oo isla Brazil ah wuxuuna degay hotel laakiin leh xaaladaha fayadhowr ilaalin iyo sharciyo adag kuwaasoo lid ku ah rabitaankiisii raadinta caabuqa COVID-19. 10 maalmood kadib subax hore ayuu la soo toosay muruq xanuun, madax xanuun iyo taal darro aad ayuuna u farxay laakiin mashiinka ilaaliya xaraaradda kulaylka ee COVID-19 oo ku rakiban hoteelka ayaa beeniyay in caabuqii asiibay ninkan. ayaama kadib astaamihii ayaa ku soo batay ninkan wuxuuna tagay farmasi kaasoo tijaabooyin badan kadib ku xaqiijiyay in corona haya ninkan. wuxuuna aad ugu farxay 11 bilood kadib inuu helay xanuunkii uu raadinayay. wuxuuna yidhi waxaan goostay midhihii dadaalkayga waxaan dareemay raaxo iyo farxad aan erayo lagu qeexi karin maadaama jirkayga ay ka buuxsameen balaayiin jeermis ah. haddaba ninkan sameeyay sheekadan yaabka leh wuxuu ugu dambeyn ka boogsaday caabuqii wuxuuna weli baaqi ku yahay kownkan.
fiidiyowgu intaas ayuu inaga eegyahay ee fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalka like saar wassalaamu calaykum